inaan ku dhiirado wadadan aad u jeedaan oo aad u fog Muqdisho iyo Walaweyn inta u dhaxayso waxa aad igu dhiirigeliyay aabahay oo in badan igu dhiirigeliyay inaan u shaqeeyo ummadda gaar ahaan dadka caafimaadka هلا mudanayaal iyo marweyn waxaa socda ololaha qiimo jabinta sanadka cusub ee Nilis Furniture Osoy Group in ka badan 30 shay oo qiimahooda la soo jabiyay ayaa kugu diyaar ah aniga waxaan imaaday guud ahaan degmada Walaweyn dabayaaqadii sanadkii 2013 xilligaas oo aan u imaaday si booqasho ah degmada gaar ahaan isbitaalka waqti xaadirkaas oo aan la kulmay ama arkay baahi caafimaad oo aad u baahsan inay ka jirtay degmada isbitaalkan waqtiga uu furnaa oo bulshada ugu talagalay shakhsi ganacsada ah oo deegaanka u furay isbitaalkan Caadil Xaaji Gaawo shirkadda Gaawo oo ugu talagashay laakiin baahida isbitaalka ka jirta waxay ahayd waqti xaadirkaas human resource oo qaasatan dhakhtar ka howlgalo ee ummadda u shaqeeyo aanan jirin baahida aan si caadi u arkay ayay ahayd muxuu ahaa markaan ku laabtay Muqdisho waxaa suura gashay dabayaaqadii 2 Agoosto in hay'adii la shaqeynayay ay ka baxda dhammaan Soomaaliya waqti xaadirkaas oo anagana siisay shaqaalihii 4 bilood oo mushaar ah oo xaq ahaan ay noo siisay waxaan markaa kadib go'aan ku gaaray in aan ka howlgalo isbitaalka Walaweyn oo dhammaan reer Walaweyn ay u baahnaayeen in muxuu ahaa ay helaan dhakhtar bulshada u shaqeeyo waxaan go'aan ku gaaray in aan waqtigeyga siiyo qayb ka mid ah maadaama waqti xaadirkaas aan haystay 4 bilood oo mushaar ah oo aan u sii shaqeyn lahaa haddii ay hay'adii sii joogi lahayd aan u sii shaqeyn lahaa hay'adaas waxaan waqtigeygii u bedelay in aan u shaqeeyo bulshadan anigoo ahaa markii hore qorsheyga in aan u soo shaqeeyo muddo 3 bilood ah dadka deegaankana aan muxuu ah wax badan ku soo kordhiyo laakiin markii aan imaaday aan soo dhaxgalay culayska degmada ka jira ee caafimaad ama baahida caafimaad ee degmada ka jirto damiirkeyga wuxuu go'aan ku qaatay in aan waqtigeyga inta aan heli karo aan u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Walaweyn fadhiga Lavera waa 995 pound oo kaliya miiska qadada 299 oo kaliya miiska qadada ee kala baxa waa 69 pound oo kaliya Walaweyn waa degmo weyn ee hoos yimaadaan tuulooyin aad u fara badan tuulooyinkaas muxuu ahaa dhibaatooyinka ugu badan oo ka jira waxay ahaayeen complicationka ama waxyaabaha khatarta ah hooyooyinka uurka leh oo aad u badnaayeen bukaanada xilligaas isbitaalka la keenayay oo aan u diyaarinay adeeg tayaysan oo muxuu ahaa inay heli karaan servicekii ugu muhiimsanaa hooyada uurka leh loogu shaqeynayay inaan u helnay computer ultrasound oo hooyada inteen uurkii khatartiisa dhalmada ay gaareen aan ku xaqiijino maadaama aan ka jirin degmada iyo degmooyinka u dhow qalin hooyada aan ka jirin inaan si hore hooyada khatarta u ogaano iyo dhammaan dhaawacyada iyo emergency-ga dadweynaha soo gaarayo dadka tuulooyinka iyo dadka gudaha magaalada oo markay isbitaalka la soo gaarsiiyo aan u sameeyno gargaarka degdega waxaan isbarbar dhigay in aan Muqdisho ama meel kale aanoo heli karo inaan ka shaqeeyo waxa ugu badan aan niyadda gashtayna waxay ahayd markaan wax baranayay kaliya ma ahayn importantigeyga inaan muxuu ahaa aan lacag leen shaqeeyo waxay muhiimadeeda ahayd inaan naf badbaadadeeda ka qayb qaadano oo Ilaahay aayad Quraan ku sheegay man axyaaha fakaannama axya an-naas jamiican oo ah qofkii badbaado sababteeda la imaado qof lagu badbaadinayo inuu asigoo dadka dhan nooleeyay ay tahay marka sidaas ayaan qaraarkii ku qaatay aan degmadiina ilaa hadda ugu shaqeeyaa aan rajaynayna insha Allah mustaqbalka dhow in adeegyada haddeertaan isbitaalka haayo mid ka balaaranna insha Allah aan gaarsiino
doonaysa inaad wax badan ka ogaato ololaha socda soo booqo bartayada Facebook kadibna riix meesha ay ku qoran tahay December campaign 48 bilood interestigu waa free alaabtadana si bilaash ah ayaa gurigaaga lagu keenaya